hooyada uurka leh ma soomi kartaa bisha Ramadaan. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ودكتور أنيسة طباني أنا دكتورة تخصص عبرة هواينكا داوين تودا إيا قليمة دودا إن رمضان وناكسن إلى يحكى رجينا يا رمضان كان رمضان كيس كله إنه نبض عافمات نجارسيو بشهر رمضان هو كفاية استن إلى إنه قدر لو نحرستو لو دم بدافو سيدا كله تنا نارتلا كحرايو إن ما أنت وحرب فيديو كان إنه وقهضلو هو يدا أورك له مسومي كرتا إن واحد جرت علم بارسية بدن أو لقى سمية جرهان ودما مسلم أهل لقى سمية أو لقوا أجاذي أما لقوا فيرين أو فويدا أوركله هدي أي صنطة سامين مكيالنا يا صن كاس عافمات كذا أما عافماتك علمي هذا سيدا أقول نحي دينتين التوسن إسلام كا وحين أبناء نساء فويدا أوركله هدي لبعت عافمات لوجا بقو فويدا أما عنو كذا أما لبدو دبا إني وأقلاته إني بشهر رمضان إني سومين هذا علم بارسيداس la sameeyay special waxa laga sameeyay wadamo muslim ah waxa lagu ogaaday iyadoo la fiirinayo hooyada caafimaadka qabto iyo hooyada xanuunada gaarka ah qabto waxa la ogaaday hooyada caafimaadka qabto inuu ramadaanka kaligiis wax saameyn caafimaad ah uusan ku yeelanaynin iyada iyo cunugeeda oo ay soomi karto hadaba maxay tahay marka xaaladaha hooyada aan loo ogoleen inay bisha ramadaan ay soonto xaaladahaas oo saameyn ku yeelan kara caafimaadkeeda ama caafimaadka cunugeeda ama labadoodaba xaalada ugu horeyso oo aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay hooyada hadii ay qabto sokor hadii hooyada ay sokor qabto macnaheedu waxay tahay hooyadaas markay sokor qabto ee uurna leedahay waxa lagu daaweynayaa oo la siinayaa daawooyinkan insulinta ah oo hoos u dhigo sokorta jirka taasna marka waxay saameyn ku yeelanaysaa maadaama daawadan ay sokorta jirka hoos u dhigayso hooyadan ay waxba qaadanaynin waxay saameyn ku yeelanaysaa hooyadii caafimaadkeeda iyo cunuga labadaba soo xaaladahaas oo kaleeto hooyada waxa u furan ama waxa khalad ah caafimaad ahaan hooyadan inay soonto sidoo kaleeto waxa jiro xaalado hooyada ay qabto xanuuno joogto ah ay la nooshahay kuwaas oo saameyn ku yeelanayo hooyada caafimaadkeeda saameyn ku yeelanayo ibida oo ah meesha ilmaha uu maxay ahayd dhiiga u gudbiso hadii marka la ogaado inta la baaritaan loo sameeyo la ogaado in ibidan dhiig ku filan ilmaha ay nasiinaynin macnaheedu waxay tahay hooyadaas waxa mamnuuc ka ah inay soonto bisha Ramadaan sidoo kale hooyada markay ay qabto dhiig yarida uurka iyadoo uur leh ha ku dhacdo ama hore ha u qabtay hooyo uur leh oo dhiig la'aan ay hayso iyadana ma loo ogolaanayo inay soonto bisha Ramadaan sidoo kale hooyooyinka la ogaaday koritaanka ilmahooda inuu naqsaan inay ku jirto yani inuu aad u hooseeyo oo ilmahan koritaan badan uusan sameynaynin iyadana waxay saameyn ku yeelanaysaa caafimaadka ilmaheeda lama ogolo sidoo kale hooyooyinka xanuuno qabo oo qaato daawooyin joogto ah sida xanuunada kaliyaha wadnaha maxay ahayd xanuunkan dhiigkarka oo kale hooyada hadii ay qabto daawo inay qaadato laga rabo waqti cayiman oo aan dib loo dhigi karin hooyadaas waxay ku qasban tahay inay daawadeeda qaadato bisha Ramadaan aysan soomin iyada uur leh hadii ay jiraan marka daawooyin kale oo fitamiin iyo waxyaabahaas ay qaadato hooyada waa la dib dhigi karaa xilliga afurka iyo suxuurta ay qaadan kartaa wax problem ma lahan laakiin hadii ay tahay daawo xanuun looga daaweynayo oo qasab ay tahay waqti cayiman inay qaadato laga rabo iyadana ma soomayso sidoo kale xaaladahaas marka waxay u baahan tahay hooyada inay dhakhtar la xiriirto intayna bisha Ramadaan gaarin la hubiyo caafimaadkeeda iyo caafimaadka cunugeeda iyo systemkan cunuga iyo hooyada u dhaxeeyo oo dhiiga u kala gudbiyo in la hubiyo in hooyada caafimaad qabto kadibna markaas ayda inay soomi karto loo sheego ya inay soomi karin loo sheego hadaba hooyada caafimaadka qabto ee soomaysa marka maxaa laga rabaa inay samayso hooyada caafimaadka qabto ee soomayso waxa laga rabaa inay samayso wax loo yaqaan sookabid macnaheedu yahay hooyada maadaama maanta dhan ay sooman tahay jirkeeda waxa ku yaraanayo biyaha iyo jirkeeda ku yaraanayo maanta dhan biyo cabaynin waxa laga rabaa inta ay sooman tahay waqtiga afurka iyo waqtiga suxuurta inta u dhaxayso inay soo kabto ama biyo badan inay isticmaasho sidoo kale hooyadaas waxay u baahan tahay hadii ay cunto badan xataa qaadan karin cuntada ay qaadanayso inay xoog ku saarto inay noqoto cuntooyin fitamiinada muhiimka u ahaa ee ka buuxaan sidoo kale hooyadaas waxay u baahan tahay inay isticmaasho supplements ay ku kabayso maxay ahayd waxyaabihii uu jirkeeda u baahnaa inaan heli karin maalintii. Mahadsantihiin soo dhawaada.